shahiidiyo igamadeeda ayaa janna iyaate jawiga farxadan naburna sutay jirdiisii geysa shahiidiyo igamadeeda ayaa janna iyaate jawiga farxadan naburna sutay jirdiisii geysa jagada qalbigay lahaydo oo naftana jixibay ahayde sutay la joogi jagada qalbigay lahaydo oo naftana jixibay ahayde sutay la joogi weyday jamata ilmaysay yankii la jiraan goobay adduunkaanu ku jeclaayay ilaa anteeda waan jirooday ku jeeraniga cidlooday udhii jamata ilmaysay yankii la jiraan goobay adduunkaanu ku فاتح هذا آمين إلهي وحنك برينا ولا الكينا فاصل قبرك سواسع إلهي إنه أولغو عيدان كهوس مرينا آمين. آمين إلهي نقولكينا صبر حسية يا مانا فاصل إنه كصبر الله أكسو إلهي قبرك سواسع أولغو جنة الله أكسو إلهينا أنك قداسيسنا مفيدنا رب سبحانه وتعالى هنبرينا مسكين كانوا دعينا والحمد لله رب العالمين وانكو تحسينا يا هذا ما تصنتهي adiga xataa sida aabaha ayaad u qiimeyn jirtay waan kaaga taxsiyeenayaa inta dhimata Allah u naxariisto xaaskaagana qasriga way ka tagtay soo maahan waxaan u maleynaa xaalado xun inay isdaba galeen meel ay aad ma jirto intay joogtaa garabkayga taagantahay buug cusub inaa furto dumaashiyay laakiin buugaaga mar hore ayuu xirmay ilaa haddana dumaashi ayaan ku dhahaa qiimahaaga inaad gartay ee wanaagsan wayba fiican tahay afkaaga mar walba sidaas u barto mar walba anaa dumaashida noqonayo mogdo ilaaha u naxariisto sabr iimaan Allah ka siiyo mahadsanid anaga reerkayga ayuu ka mid ahaa isaga xaqi aan ku lahayn waanu ka saamaxnay ilaahay ha u naxariistaan oran lahaa aadaad u mahadsan tahay hooya saada mac salaamo haye is aragti dambe inaan taydiyay
عايشة ما حد سمعني ساعة aniga waxaan rabaa ubax qalafurka mar kaleeta in aan abuurto waxaan isleeyahay halkan ka qaado caradaana qabriga ka qaadanaya hore waataan ugu abuuray caramadow haddana caramadoodii ayaan rabaa dib inaan ugu abuurto aniga markaa ubax qalafurka aan abuuray aabay xataa wuu ila yaabi jiray marka hadda jaanis aan ku haystaa qabrigan qofka ku aasan hooyaday magaceeda camal ayuu leeyahay waan ogahay hooyaday booskeeda qof kaleeta in uu buuxin karin laakiin waxaan isleeyahay maadaama isku magac yihiin ka qaada caradan si aad ubax qalafurka aad ugu abuuratid marka intaasaan jeclaysta ubaxana waan jeclaha aniga waan qaadanayaa caradan waan ku abuuranayaa ubaxa qalinfurkaaga runaantii qisa murugale ayuu leeyahay waxaan caddeen u ah qiimaha hadeertaan uu xaggaaga ka leeyahay waayahana keen teeda kale hadeertaan taleefonkaaga waan kuu toosiyey hadda kadib lagama yaabo keligiis inuu isqabto waa mahadsan tahay aabba ficnaa laheedaa maalinta qiyaama dadka inaad kuleetiga ku dhegtayd weliba dadka adiga kugu shaqaysan jiroo dembi kaa gala laakiin adiga middaas ma samaynaysid cafiskaagaa badnaa maxayl maskiinaad tahay ha aabba ma samaynaysid middaas weligaana dadka waa iska cafin jirtay aabba wiilkaaga dunidan keligiisoo ku noqda wuu cidloowa bes waa aniga horteedaa ku nafbaxda waxaan kuu qaban waaya aabbo geeridu waa xaq adiga mis aniga qof un waa uu dhiman lahaa haa aabbo qof un waa uu dhiman lahaa anigana waxbaa kuu qaban waaye aabbo qisada maalayacni uma bilaabanin soo maahanne adduunyadaanna waa laga tagayaa haye xagadu carraysaa tayare ii sheeg iskuul bareefad ayaan bilaabay iskuulka intuu xiran yahay inaa meelahaas iska wareegaya waaya gabadhi aniga ayaa hore kuu kaxinana keen waaya aabba macaan nabadee aytaan waan soo daalnay qaxwo noo keenan cabar waaya marow gabadhiya qof maa raadinaysaa haa caaisha ayaa raadinaya caaisha yalmaas kaale inantayda ii kaale caaisha yalmaas maxaad u baadhaysaana ii sheeg adreeska hadduu saxan yahay waxaa u malanaya iyadayna inta ka shaqayso وكحما أبا وقريودا لكن كرف كاغي أذيركا أياتاغي
adiga weligay in aanan kala socin oo asuu ka mid tihiin marka waxba welwelin aniga yaraanteeda hadalkaas waan iska aamini jiray adeer cadnaan mid aan ku xasuusiyo aniga markii aan yaraa waxaan kuugu sugi jiray albaabka bannaanka si aan habkuu siiyo habar asaada khayr allah siiyo mar walba waxay isoo xasuusan jirtay aniga qofkan ay iyo heerkan taaganahay arrin sahlan maahan aniga aabbeyga inaad ii matasho anigana wiilkaaga aan kuu matalo wax sahlan maan adeer aniga aabbeyga waa uu dhintay mana soo laabanayo adeer cadnaan adiga wax walbuu aabbannimo aad iigu samaysay aabbahayga rumaad ma noqonaysid anigana wiilkaaga ma noqonayo haddaba marwa caaisha waxay idinku tidhi halkan ayaan ka shaqeeyaa miyaana sheekadu maya iida miyay dhihin laakiin walaalkay ayaa u sheegtay caaisha walaalkay agtiis ayaa qiimo ku leedahay walaalkay maxay isku yihiinna iida asxaab waaye asxaab noocee weeyaan markaa micnaheyga walaalkay iida xooga waxaa waaye maxaad noo sheegaysaa inateed dee sare u hadal maxaa ku helay seerdaa caaisha marwa caaisha saaxiibka walaashii halkan ayay timi waxayna leedahay halkan ayay ka shaqaysaa gabadha laakiinse annaga waxaanu isweydiinaynay waxay sidaas ku dhacday waxaan u malaynaya saaxiibka ayaa ku walowlay soo maaha run ahaantii waxyaabo noocaasoo kale halkan kama sheegin saydaa soo dhawow magacayga waa fariid caaisha ninkeeda ayaan nahay anigeeda waxaan isguursanay qofna anagoon u sheegin waxa ay cad arrintaas inaadan ogaanin marka hadday suurtagal tahay soo dhawow naga raali noqo waana ku faraxsanahay barashadaada soo galbal caaisha maxaa maleegoosaana maxaa waaye walaalkay darta ayuu xabsi u gala adigana maalaa yacni iyo waxaa loo jeegin ayaaba heesaaye isdeji saydaa sidaad wax u malaynaysa waxba uma jiraan aniga iyo walaalkaa bahaan waxba nagama dhexayaan asxaab ayaan hayaaqay maxaa ku hadli ii sheegay adaa ku weydiiye arooskana maxaa waaye yaaqay arooskan aniga isaga inaan ku badbaadi dartiis ayaan u sheegay waayahay ninkaa bahaa ma yaqaanaan ii sheeg ma yaqaana soo maahayna nolosheedii iga raali noqda sheekadiina idinka soo dhex galay bal ka warran saydaa haddii aan si fiican u soo dhawayno aan bannaanka aadan ka soo wada cuntayno sideed u aragtaan fursad mana siin kartaan aan ku wada hadal dabcan waayahay bannaanka kugu sugaa adiga maadaama aan ku guursaday iyada umaan sheegin sidaasay ka xanaaqsan tahay marka anigii iyada bannaanka hal mar ma wada bixi karna inaan raaligeliyaa rabaa dabcan maxaa diidaya nolosheedii haddaba shirkaddaanu sii socdaa horey aan idiin sii qaado saydaa inawad bal saaxiibo oradaa ku dhahaadayano waxaa mama ka filleen aniga war dhagahayga ku maqla ku dhahoya dhagahayga ku maqla aniga ayada ninkayga dheheysi waxaa kaloo dhahday aniga waxaa ka ballan qaada ninkayga gacantiis inaad deynaynin gabartaas way guursatay faatax qofay meeshaas ka heshay wayna guursatay macantadeyda gabadhayda aan jeclaaye waa la socotaasaan dareemahay aad iyo aad aniga inaan kuu jeclahay anigaba waan ku jeclaa aabe
gabadhayda macaanide is aragti dambe aabe waayahay nolosheeda baay aabo waayahay gabadhayda sii soco Ibro Sinan bal fiirihi adduunyadan aniga markii aan halkan ku warka xaqiiqatan aad ayaan u yaabay maba kaa filanaynin anigaba sidoo kale meeqa sana ayaa laga joogaa wax badan sidee laakiin adiga halkan ku imaaday jerman goormay ka soo laabatayna haa jermaliga waan ka imaaday laakiin hadda intaa joogi rabaa macnaaga weli ma fahmin toos miya usoo guurtayna haa cunugayga xataa maanta iskoolka ayaan ka qor waxaan rabaa hadalka si uu ugu barto fiiri bal nolosha aniga xataa gabadhii iskuulka ayay dhigataa beel waa noloshaada waxaa jeclayd gabarina aabuu noqoto hooyadaa sidee tahay xaaskaaga iyo hooyadaa ma heshiiyeen waxaan rajaynayaa gabadhay sadohda u tahay sida ayada rabtay inay u noqotay adiga sidee tahayna ma faraxsan tahay micnaheyga waxaan kala jeedaa adiga safarka aad gashay iyo xaaladaad ku soo laabatay qof walba waddankiisa ka taga waddankan hadduu tago wuxuu isleeyahay ma la qabsan doontaa waddankaa tagtee waa runtaada si walbay noqoto waan kaa sii tegay is arag dambe is aragti dambe maasha allah adiga waxaad noqotay gabar gurigan laga qabo camale aniga halkan waxaan u imid saaxiibkay inaan garab siiyo aniga saaxiibkay garab oo kaliya ayaan siinaayay dadka saaxiibadana waxaa loo baahan garab inay siiyaan in la isqabo kaliya maahan saaxiibkeen garab siinaay ma idhahde allah kuu fududay saaxiibay macsalaamo dhibaatadana ku jirtid aniga waxaan u mid halkan inaan garab kugu siiyo laakiin wax walba saaxiibtay batuulaba ku dhamaysay waxaan u maleynayaa damac gooni inuu ku jiro maxaa dhahay ma ka masiirtayne oo batuul ma ka masiira aniga adiga weligaa isma bedelaysid aniga inaan kaa taga maratid inaa haystidna maratid markii aan kaa fogaado waa iga soo daw cararaysaa markaa kuu soo dhawaadana waa iga baxsanaysaa sidaba waxu jiraan saaxiibe meeshaan waxaan u imid inaan garab ku siiyo ma ahayn inaad i eedaysid aniga kaale ani doqon maa ii malaysaane adiga waxaa rabtaa guuldarrada ku soo gaarta meelaad ku ilooda laakiin aniga wakhti ma hayadanayso guuldarradii ay geystay ma adiga mise fariid
ama Aisha yaa ii geystay guuldarada ii sheeg meeshaan isaga tag maxaa dhacay maxaa kuleel saa'id ma dareentay handaa meeshaan isaga tag orod soco waaya qurxo waan kaa tegayaa laakiin waxaan ku sugayaa adigoo qabaan camal oo jilbahayga haysta gurigayga inaad timaadid markaasaan jawaabtaada ku siinaa هلو يا سادة hooyaday ani waa u sheegay walaalkay inuu xabsi ku jiro maxaa yeelay hooyaday waa ka naxay miskiinta aadayna u murugsaneed walaalka aniga haddii aan u sheego inaan guursado asaga uu murgaateed kale aniga asaga asxaab ayaan nahay adiga inaad nafaantid isku day waxba nagama aysan dhaxaynin 18 sano lagu xukumiraa moogtaana midaas maxaa dhahday 18 sano maxaa ka wadaa ninkoo dhaawacay isaga woo dhintay xalil oo dhan wuu ku soo wacay looyarada idana wax walba ninka way u sheegtay looyarada idu waxay soo sheegtay adiga inay inta joogto laakiin adiga walaalkay noloshiisa ma kala jecel noloshaada ku qaaska ayaa wadataa waan iska raaxaysanaysaa 18 sano aha 18 sano sayda istaagiya waa ku baryaayay idhigeeso walaalkay noloshiisa mar dambe inaad qastaha isku dayin sidaasina wuxuu dhacaan aniga ma reebin halo abukaatadeeda yaaqay arrinta baha ayaan hadeertaan maqlay waxaan rabaa inaan la hadlo waa ku baryaa inaan la hadlo ma ka shaqayn kartaan iigu soo sheeg waa ku baryaa ha isoo waco aniga hal mar xataa hooyaa saadaasi uma fiicnid adiga waan fiicanahay soo dhawow inantaydii iga raali noqo waan kaa soo daahay beertan jiri sida aan asaga ugu soo taxsiiyeeyo haa aniguba halkaa waan tegey meel gooni inaan kuugu waca waan jeclaa laakiin aniga waan kaa soo gaari waayo wax yar waan iska mashquulsanaa haddaan meeshaan ku sheekaysana ka waran dhibaato malaa inantayda anigana waxaan kuugu hambalyaynaya arrinkaasuun intaas mahadsanid aniga koleetaba xaaladda jirta darteeda wax walba waan ka labalabeynayay markaan arko fariida iyadoo la joogtana aad ayaan mar walba uga xanaaqaa maanta waxaa timiina saaxiibadeed oo saydaa la yidhaahdo marka qasrigeena waxay moodaysay iyada inay ka shaqayso waxyaaba ayay doonaysa inay sheegto laakiinse arrinka waa noo suurtagal waayay nin baan ka daba diray soo ogaada sidee amaarkina hooyo degdeg ayay nugu soo gashay maba aaminsani arooskan labadooda ka dhexay inuu run yahay adiga handaay inankayga ku qiyaamaya hore muu aragtayna ii sheeg aniga ismalayn arooska ka hor ayuu inankaaga waxaasoo kale ku dhaqmayaa inankaygana qof bili'aadana inuu qiyaamo ama qalbiguu ka jabiyo ma ay dhacayn waan ogahay gabadhaasi asaga inaysan waxba ka dhaxaynin wax walbana way iska cad yihiin waayo adiga xaggaaga ka waran handaay fariid xaggaaga armuu qalad uga yimina maxaa waa hooyo asaadaa waxay dhahaysid aniga fariid waan jeclahay ilaa yaraanteenna nolol ayaa naga dhexaysay adiga waad og tahay aniga inaanan jeclayn waxyaabaha qasan haddii aysan waxba jirin dee waxba ma jiraan unbaday odhanaysaa waxba ma jiraan hooyo inanti saydaa la odhanayay waxyaabahana warinaya inay xal u heshaan laga yaabaa anigaba sidaas ayay ila tahay qaxwo ma cabnaana haa waan cabayaa subax wanaagsan asxaabta walaal khayr soo ma jiro maxaa kaa qaldan
maya aniga waxba iga maqaldan caadi ayaan ahay neoyaab ayaad leedahay maanta ibro ayaan arkay ibroha jermana ayay ka soo guurtay toos halkan ayay u soo degtay wiilkeedana wuxuu dhigtay iskoolka gabadheeda ay dhigato allah